halkan waxa weeyaan halkan waxa ka hadlaya website-ka Harwanaag News waxaan halkan nala joogaan doonaynaa inaan wareysi ka qaadno mudane Xasan Waraabe Cadde oo dadka reer Soomaaliland si weyn u yaqaanaan waliba gaar ahaan xagga isboortiga oo wuxuu la dhayimay maalintii Arbacada ee mudaharaadka weyn socday iyadoo xaaladdu qaboobayd oo aan laftigaygu ku arkay meesha goobta ku socday mudaharaadka ahayd Downing Street number 10 marka ilaa sidii buu joogaa UK gaar ahaan London marka waxaan doonaynaa inaan u yaro wareysi ka qaadno mudane Xasan Waraabe Cadde ku soo dhawaad Harwanaag News aad baan u faraxsanahay waliba inaan goobtan aad ka weyn aan kula kulmo marka mudane bal waxaan naga warataa sidaad oo timi UK iyo mudanaysa ay xaaladihii mudaharaadkaad ka qayb gashay jawiga hadda ay ku sugan tahay arrinta Soomaaliland wallahi runtii waxa farxad noo hayd inaan reer Norway haddaan nahay aan ku faanno inaan goobaha aad isku yimaadaan ka qayb galno marka halkiina looga sheekayn lahaa baan website-yada ka arki lahayn waxaan door bidnay inaan ka qayb qaadano mudaharaadkii annaga oo aad u badnay runtii kana mid ahaa dadkii Norway ka yimid waliba Arbacada subaxii salaadii hore yimid dabeetana toos u tagay goobtii mudaharaadka imika aan doonayno inaan noqon ilaa madaxweynaha badbadiisa ugu dambeysay shacabka kula kulmayo aanu la sii kulanno farxad weyn bayna runtii aan ii tahay aniga iyo dadka reer Norway deganba waad baasan tahay mudane Xasan Waraabe Cadde laakiin faramaad aad iyo aad bay idin mahadsantahay ما شاء الله الله يجازيك بالخير يعني أنا كان إيميل كيسة قارنة إيميل كان قال كايكو بس هو سوريا هذا واحد هاي بكرة هاي صوبه سعيد عطاني واحد هلك واحد فديا فيك دولتي هوري Somaliland سعيد عطاني موجة سما سعيد عطاني موجة ها سعيد عطاني موجة هي أولياء كلو بسفير بقى عاقة سلام عليك حول سلام شيخ شفيق أنا محمد محاد شيخ سو تشيلني soo jeedinaya dadka reer Somaliland reer Somaliland waxaan soo jeedinayaa maanta waxaanu galay marxalad cusub oo khatar ah ayaynu galnay marxaladii ugu khatarsaneyd intii aynu joognay ayaynu maanta bilownay waxaan soo jeedinayaa inaynu midnimo siyaada ah iyo unity siyaada ah inaynu samayno si aynu marxaladan halista uga baxno waayo ilaa 20 sanadood maanta inuu marxaladii khatarkeed galay marxaladaas oo ah marxaladii aynu ku dhalanaynay marka waa inaynu midownaado isu wada nimaadna gacmaha isu wada qabsanaa oo aan mucaarad banaynay salaamu calaykum sheekhan waa kada